Asalaamu calaykum waraxmatullah asxaabteyda qaaliga aan jeclahay kusoo dhawaada janalkeena Maryam Cooking and Henna. Maanta waxaa idiin wadaa qada aad u diyaarsan, kaalay igala soo tuur, wayna fududahay sidaa u diyaariyey. Hilibka waa kayaa zaaid ayuu u jilicsan yahay markii kariye kadib. haddana hilibkaa jarjaraynaa. Waxaan ku daraynaa 2 koob oo biyo ah si aan u isticmaalo maraqa oo dhali doono oo bariiska aan ugu darsado. Digsiga aan isticmaalayo waa kii naqaska 30 daqiiqo ama 20 daqiiqo way ku filan tahay hilibka. Dabka u gaabi si uu soo buriyo. Haddana waa kayaa uu noogu soo dayay maraqii. Hilibkii uu jilicsan yahay waliba zaaid ayuu u jilicsan yahay. Maraqaas waxaan u isticmaali doonaa bariiska u isticmaali doonaa wax biyo ah kuma dari doono. Adiga iyo qoyskaaga inta idinku filan ayaa isticmaalaysaa hilibka. Ani hadda nus kiilo ayaan soo gatay. Maraqii hadda waan ka soo miiray si aan bariiska ugu daro. Waxaa ku daray jumbe, wax yar oo kabsar caleen iyo toon iyo xawaash kaari. Waan ku soo daray, isku soo walaaqay, wax yar isku soo kariyey. Basal hal xabbo soo jarjaraa ku daray. Sidaas oo diyaar noogu yahay hilibka. Waxaa gelinayaa bariiskii. Hal xabbo basal iyo jaba soo jarjaray. Xawaashyada waxaa xawaash luluub iyo xawaash kaari iyo xawaash buur, maraq jumbe, filfil iyo sanjabiil iyo basbaas iyo jumbe. Intaas waaye waxaa ku dari doona bariiska. Kabsar caleenta iyo toontan way diyaarsan yihiin. Gadaal ayaa ka arki doontiin. Haddana saliida ayaan ku shubay. Digsiga way soo kululaatay. Basasha ayaa ku daray. Way soo shiilmaysaa. Intay soo shiilmayso maxaa ku darayaa haddana kabsartii toontii oo diyaarsanaa. Waxaa ku sii darayaa markaa isku walaaqa cabaar. Xawaashyadii iyo diyaarsanaa ayaa ku darayaa. Waa isku walaaqa ka bacdi. Markaa is dhex geliyo intaan waxaa ku dari doonaa wax yar oo biyo ah. Xawaashyadii iyo basashii iyo kulli. Kadib waxaa bariiska oo 1 saac ama 2 saacadood meelahaas camal yiilay oo soo dhaqay oo biyo yiilay ayaa ku darayaa. Biyaha ka soo miirayaa. Waa soo dhex gelinayaa asagii qudaartii. Kadib waa ku soo shiilayaa. Waxaa ku dari doonaa maraqii ayaa ku dari doonaa oo noo diyaarsanaa asagoo kulul. Maxaa la dhahaa kadib maxaa waaye bariiska waxaa la rabaa inuu noqdo mid furfur ah. Wax yar ayaa isku soo huurin doonaa maadaama uu wax badan ii qasnaa. Waxaa ku soo daraynaa maraqii. Wax kale oo biyo ah ku dari doono. Maraqii ayaa ku soo darnay. Maraqii markaa ku soo daray waa is dhex gelinayaa. Dabka ayaan u gaabin doonaa maadaama uu bariiska muddo ii soo qasnaa. Dabka waxaa ugu gaabinayo waxay tahay inuusan iga gubanin maraqii soo dhamaysa asigoona bislaanin inuu iga gubanin oo ceeriin uusan iga noqonin. Mar walba dabkiina u gaabisid ay haboon bariis markii karinaysid si uu ceeriin kaaga noqonin. Haddana wuu karsamooyaa. Daboolkiisa ayaan saari doonaa. Wax yar ayaan soo sugayaa. Hadda diyaar waaye bariiska waan ka dajiyay dabkii. Waa kaasa asigoona iga gubanin. Sidaan fudud ayaan u soo diyaarsaday galaaskayga cambaha iyo ansalaatadeyda. Aad ayaa u mahadsantihiin daawashadiina. Subscribe noo saar, like, share, comment.